حديث حلقة عن بلن قاضي إن الشيخ وحوها حديث النبي عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة لما أهرمات ما تشوكتيه أو ما إلاليه أو ما حفظيه أدون مسلم إلا جنة قلا والله أهرمات مركز النبي يقول هما يسير ومن يعمل بهما قليل لما أهرمات وافدوديهن لكن وحكوا عمل فلا يا إسكير ساس النبي عليه الصلاة والسلام ويفدوديهن لكن وحكوا عمل فلا ير مدك بعد النبي عليه الصلاة والسلام تكبر دبر كل صلاة 10 وتحمد 10 وتسبح 10 أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة كسته أو فرض مركة تكتد جدال كذا وحال لا ده هي توانشر الله أكبر توانشرنا سبحان الله توانشرنا الحمد لله وميقة صدم فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان النبي يقول عليه الصلاة والسلام markii la isku daro shanta salaadood waa 150 waxa akhris oo fiirso shanta salaadood midiiba 30 weey meeqay noqotay 150 baa nabi laakiin miisaanka aakhira waxa lagu saaray 1500 ayaa miisaanka aakhira lagu saaray maxaa yeelay halkii mar oo aad tiraahdi subhanallah 10 bay ka kacaysa فائدة إيه حسنات كذا طبعاً كبلابانية طبعاً بتجي حاجة آخر إسكمر كان النبي يقول يجري أو لقول واقعي شنطة صلوات أو من صدنا وأبغى لي كنت لكن حاجة ميزان كان النبي يقول يجري وكن يشم بقول حاجة فائدة أصلها هلا مانت إن اللي بتد بقول يكون $10 أو تراهب لو يقول شقة أو كينا كن يشم بقول أو $1 بيكونش أفر يلا ما تنسى عقدوه نفايده أي تاعي حاجة اللي جاي كرا مال لوجو الشيء جميع قرنيس دافها الدنيا ده ماشي وجود ما يساعدني فائدة أصل لوجو الشيء ركب أو صفر لها أو عادي لها سموبي أفر يلا ما تنسى عقدوه وحلا بحساب بقول يكون $10 وحن هلا يسا كون يشم بقول لكن مدان أيضا قرش كعجة بحين أي أنت سهليس صلاة كساسة يليس تاسي وامد مد الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه مركا أصيحنا ينا وحو أورنا هيا صدن يأفر شير الله أكبر ويسبح 33 ويحمد 33 صدن يصدح شيرنا سبحان الله وأورنا يا صدن يصدح شيرنا الحمد لله لكن صدن يأفرتو صدن معناها يأفر ويا مد الله أكبر تعه وأمركم السيحانيو صدن يصدح شير الحمد لله صدن يصدح شير سبحان الله صدن يأفر شير الله أكبر ما اللي فهمه النبي يقول المركو الشيء فذلك 100 باللسان وبقول حق آخرسك و1000 في الميزان ميزان كآخرنا وحال لغو صار كن حق آخرسك وبقول الله أكبر تا وحي تهي صدن يأفر سبحان الله هنا وصدن يصدح الحمد لله هنا صدن يصدح سو بقول معها حق ميزان كآخرة وكن حيا للتيبة وحويان طوان بالغو دفناي لبدا أهرمات oo mid tahay markuu qofku seexanayo inta inuu akhriyo midna tahay marka salaadaha uu ka baxa faradka inuu 10 ka akhriyo la yuhafizu alayhima abdun muslimun illa dakhala aljanna bani adoon mu'minihi muslimi ma xifdiyo ma joogteeyo illa jannadu gala nabiga su'aal baa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxa la rasuulka ilaahay waxa tiri huma yasir wa man ya'malu bihima qalil labada arimood waa fududiin dadku amal falayana waa yariin say ku dhacda arintaas haday fudud yihiin waan u jeednaaye say dadku amal falahay loo waay oo dadku u banaan waay
markaasaa nebigu yidhi ya'tii axadakum yacni shaytaan shaydaan baa wuxuu u imaanayaa midkiin fayunawimuhu qabla an yaquulahaa markaasuu seexinayaa intuunan dhihin ayuu hurdaysiinaya ويأتيه في صلاته صلاة ugu imaanaya dhexdeeda masna fayudhakiru حاجته قبل أن يقوله intuunan oranin ka hor ayuu wuxuu xasuusinayaa xaajadiisii iyo danta ku taagan buu xasuusinaya markaasuu ka dhaqaajinaya labada arrimoodba shaydaan baa soo xaadiraya agtooda midda hurdada waad aragtay haddaa istiraadintaa soo weysa qaadatay adkaarta akhri markaa bilowdidbaba gamaanya kugu bilaabanaysa meel alla meel aad marsiinaysa adoo garan baa qamleeda saasuu khayrkan kugu dhaafinaya salaadana markaa ka baxdid oo istiraadid bad adkaarta akhri ayuu markiiba wuxuu kugu joojinayaa intaasoo arrimood bahalkan baaba aad uga qayb qaatay moobeelka markaasoo soo bilaabanaya soo dhacayaaba oo la yaabaysaa intaas oo koola waxa arkaysaa salaamu calaykum qofku markuu yahay asagii intaas ku taagan subhanallah intoon dhima baxaya si baxaya khalaas markuu salaada la joogana wuxuu ku xasuusinayaa danaha aad leedahay oo aad markaa kugu taagnayn buu ku xasuusinaya danahaasa marka waxay keenayaan ayagina ku fakartid meeshii aad ku fakari lahayd shaygan qaaliga ah oo nabigu sheegay ka faa'iideyso hadda dadka u fiirso markii salaada laga baxo subhanallah haday bilaabaan qof inta uu akhriyay xasuusani waa naadir waa bilaabaya faraha qof kasta faruhu dhaqaajinaya fiiri qof wax ogna ma jiro waa naadir subhanallah qofku bilaabaya allahu akbar bilaabaya hadii la yiraahdo xagee marsiinaysa meel alla meel marsiin ma yaqaan waxa marka caado iska noqotay markii salaada laga baxaba subhanallah ya alhamdulillah horta faraha in lagu bilaabo farihi waa iska wada shaqeynayaan kulligood waa dadka wada dhaqaajinayaan hadda fiilisi qaarkood waxbay akhrinayaan qaar wax u akhrimayaan farihi ma shaqeynayaan iska socdo oo shaqeynayaan hadii marka nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam adkaarta la akhrinayo mar waxa la jireeyay 33 bay ku timaadaa marna 4 marna waa midaan oo waxay ku timaadaa 10 marna waxay ku timaadaa iyadoo 100 ah baa waxa laga dhigayaa 100ka 34 Allahu akbar baa laga dhigaya salaada gudaheeda way laftigeeda duruqdan marka kala duwan oo adkaarta nabigu u jideeyay midaana ugu yar 33 hadaa joogtay kartid akhri subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 boqolka maxaa uga dhigaysaa la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lahu waa dhameystiraysa oo boqolka uga dhigaysa taasi waa adkaarta siiqa kamida weey midaan 10 ka ahna waa siiqa kamida waxa laga yaabaa mararka qaar kood inaad degdegsan tahay oo midda dheer adoo aan akhrin ka tagtid tan yeena ku dhaafin marka midaan 10 ka yeena ku dhaafin waxa naftaada bartaa marka midaan marka akhrinaysa nafteena soo xaadirisid inaad 10 ka akhrisid ugu yaraan waliba dumarka waxa laga yaabaa adkaarta dhanba inay ka dhacsan yihiin salaada haday guriga ku tukadaan faradka inta badan waa naadir inay masjid ku tukadaan jamaaca inay helaan waa naadir laakiin salaada gurigooda uga khayr badan salaaday ku tukanayaan masjid maca tan gurigooda ka khayr badan ayagii marka adkaartaan oo kale jikadii baa sugaysa ilma yar baa ku soo ordahaya hawl baa u taala haday 10 ka joogteeyaan habeenkii markay seexanayaan 34 Allahu akbar 33 alhamdulillah subhanallah boqolka ay joogteeyaan inta haduu qofku isku dayo wuxuu helayaa khayrkan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa kanzi qaali oo kayd qaali weeye oo aan u baahanahay inaan nafteena barno oo aan ku tarbiyano ilaahayna waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in